سريبك كدايو كتيم بادي إذا توك صوبي حندونا تيجينا جمان ضيحبا وافتيمو قاروتا انكودي سريبك كدايو كتيم بادي إذا توك صوبي حندونا disayno dawladaynu dhisayno taariikhay mari doonto intan diirada saaro gurba aan kala doora oo da'weynugu deeqo dawladaynu dhisayno taariikhay mari doonto intan diirada saaro gurba aan kala doora oo da'weynugu deeqo markino u loolamaya kursiga Lagboqol ward ahna ku fadhiya kursiga goodka Lagboqol oo rajaynayna insha Allah inuu ku soo laabmi doono sida aan jecelahay ayaan kala soo qayb galnay in maanta aan u qaato waraqihiisii shahaadooyinkii uu ku loolami lahay IEBC oo gacanta laga soo saaray oo hadda haysto taa waxay u fasaxaysaa in uu noqdo musharax كل لما كرسيga goodka Lagboqol anigoo muddo saaxiib aan ahayn wada shaqeynayni county assembly-ga 2017 ilaa hadda ayaa waxaan maanta u soo raacay in aan la ogaado in shahaadooyinkiisa uu gacanta ku dhigo waxaan rabaa insha Allah in aan walaalaha reer Lagboqol aan ka codsado codkooda in ay siiyaan Cabdirasaaq markii labaad waxaan saa u leeyahay muddada aan wada shaqaynaynay nin wuxuu ahaa codkar ah hayin ah shaqadiisa ka soo baxay si fiicanna maarkino dadkiisii ugu khidmay ayuu ahay waxaan jeclahay insha Allah in haddii lagu soo celiyo mar labaad uu noqoni doono xildhibaanka ugu fircoon county assembly-ga 30 ward laga soo doortay Wajeer County laakiin waxaa fiican dadka markii la qiimeynayo in la fiiriyo shahaadooyinka ay wataan iyo CV-ga ay wataan anaga roo dhaqataanahay waxaan ognahay inaan xoolaha maarkino aan soo rarano maxalli jiray geela aan rarano geela midka maarkino rarka marka lagu bilaaway layliga la yiraahdo iyo midka hayinta waa kala yihiin midka layliga ah lagu ma hadleen karo ilmaha yar iyo maamooyinka lagu ma hadleen karo waa in maarkino xoog oo goysan karin lagu reebo garuuna loo haysto Soomaha laakiin ninka hadduu noqdo haddii hayin uu noqdo waxa waa cunug yar lagu aaminayaa xiriq uu qabanaya uu iska raacaya meeshuu aado marka ninkaanayto hayin uu noqday wuu 10 jirsanayaa marka hadduu 10 jirsadana wuxuu noqon doonaa sida ratiga oo kale hoggaankiisa cunug yar loo dhiibo gabadha yaroo maarkino masaakiinta uu ka warqabi doonaa wiilasha maarkino dhalinyarta shaqo la'aanta uu ka warhaan doonaa waayeelka uu ka warhaan doonaa insha Allah anigana waxaan kula dardaarmayaa insha Allah hawshaas inuu ka soo baxo markii Ilaahay siiyo sida awgeed codsigayga anigu waxaan ka imaaday Ibrahim Ure Ward waxaan safartaaneed waxaan dhahay bal waan iska yarnasanay waan ka yarnasanay laakiin insha Allah asay waxaan u soo raacay intaas inaan garab u noqdo oo maarkino galabta aan maarkino aan dhahay shaqadaadii sii wad insha Allah sida awgeed insha Allah waqtigeeda kuma qaadanay asagan ku wareejinay insha Allah waxa kale aan hilmaamay aan rabay in halkaaneeto aan ka xuso qasida habeen xalay ka dhacday sarif ka dhacday walaalayaalow dadka muslim baa leeyahay walaalna waa leeyahay waxyaalo qaar oo ula kacayna marmar qaar way iska dhici karaan wixii dhacay way dhaceen dadka walaalaha ah oo ma arkino qasidaas ay ka dhacday in wax kale oo dhib aan la geysanin in la istajiyo la isxasiliyo wixii Ilaahay naftigooda way go'day laakiin naf kale aysan raacin dadka walaalaha ka dhinteen waxaan u dirayaa tacsiyo anoo ku hadlayo codka shacabka ama Sale Ibrahim Ure waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hooyadii ka dhintay aabihii uu ka dhintay ehelka uu ka dhintay dhamaan sabar iimaan Allah ka siiyo taasna insha Allah tacsiyasan u dirayaa dadkana si fiican oo walaaltinimo kuuro baxan yahay ma jirto kuuro bariin baa la ridayaa kadibna lagu kala tagayaa laakiin aan la isku xamaasaynin yaan la isku dhagax tuurin yaan la isku aflagaadeynin yaan la isku caaynin
qof walba maarka qofkii ma arkin oo uu rabo ha doorto marka sidaasna ha lagu ixtiraamo codkiina ninka aragtiin siisto laakiin yaan isku dilin yaan isku cayrin insha Allah waa maasantiin midda koowaad horta dadka si wanaagsan u soo baxay aad baan ugu mahadcelinayaa midda labaad maxaan leeyahay runtii maanta maxaan u imaanay shahaadada IBC inaan qaadano anigoo ah cabdirasaaq bare oo u lulamaya kursiga Lagboqol oo haddana ku fadhiya kursiga asage maanta shahaadadaas aan u imaanay inaan maaragtay u qaadano warqadeeda intaan la ogaado horta midda koowaad midda labaad runtii walaalkay Ibrahim Urey MCA electa oo hadda ku fadhiya kursiga aad baan ugu mahadcelinayaa hadalka wanaagsan uu ka dhawaajiyay oo ah in xilliga siyaasadda amniga aad loo ilaaliyo sababtay tahay xalay waxa ka dhacay waqtigiin wajeer South qayb ka mid ah oo maaragtay wardka la banaanay ward oo sarif magaalada la dhaha haddaan ka socdaa taasiyada runtii aad baan maaragtay ugu xunnahay xalay waxa dhacay laakiin maxaan leeyahay amniga lagu dalaala dadka walaalahayn waa u tacsiinaynaa annagoo dhan bay geeriyooden maanta waxaan u imaanay waa warqadaas inaan qaadana anigoo ah cabdirasaaq runtii maxaa kaloo nii sheegayaa siyaasadda baarlamaanka marka la xiraa ee siyaasadda si fiican u bilaabanaysa July ma aysan dhihin marka maxaan rajaynaynaa July ma ay dhihin insha Allah anigoo maaragtay hawli ku socdo oo si wanaagsan u socdo oo wax badan iga filaysiin inaan imaan doona waxqabadkii aan qabtay aan soo bandhigi doona sidoo sheegay walaalkay Mahad anigoo waxqabadkii 5 sano qabtay soo bandhigi doona bulshada reer Lagboqol South soo bandhigi doona ayaan maartay halkan ka cadeyn doona July ma ay dhihin maanta hadal weyn ma qabna maxaan nii sheegayaa July ma ay dhihin campaign-ka insha Allah billahi kariim si official ku bilaaban doona markaan bilaabnana wallahi ayaga inaan naga qayb qaadatay maan jecelnahay July ma aysan dhihin intaan la ogaada reewaasooyin inaga si aan nagu soo baxdeen maanta aad iyo aad baa u mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh